بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة قابا فرين قابا وأن أدريو حلبانك صوماليات وأن أقوم قعدري حلبانو عرورت هذا مستقبل كوضا كفكر وملحن هآدين. إخواني ودقي صوماليا وادوتي وحكا الصعودة إلي دورة مدحويني كان عدونتو بشني تبان كذا ودا كان إمانتي حرمة وقاتي كوني سقال بقولي اللحنكي لغا صوب بالله إلى ما أنت وحولد على دعي dhibaatooyin fara badan oo xagga maamulka iyo siyaasadda ku tacalluqda, dhibaatooyin fara badan xagga dhaqaalaha ku tacalluqa, dhibaatooyin fara badan xagga bulshada ku tacalluqa, dhibaatooyin fara badan oo midba midka kale usii dhiibayay ay ummadan Soomaaliyeed ee muslimiinta ayaa haystay. taariikhdu qof walba waa ogyahay markii dowladdii ugu horeysay ee madaniga la doortay dadkii la filayay inay ummadda wanaagga u horkacaan oo khayrka u horkacaan oo ummaddii walaaleeyaan oo wixii maxalla loo dagaalamay oo xornimo iyo cadaalad iyo sinaan in la gaaro waa la leexiyey oo qabyaalad iyo waxa lagu leexiyey naf jeclaysi iyo maxal lahay iyo gobol jeclaysi. xukuumaddii madaniga ahaa ilaa 1969 bay soo socotay, iyadoo sida way kala duwanayd marxalad kala duwan. waxay ku dhamaatay in doorashooyinkii 1969 bishii aan filayo Maars inay ahayd in la boobay oo lagu shubtay. waxay dhalisay in madaxweynihii waddanka maalin cad har cad in la toogto la dilo. waxaa ka dambeeyay dowlad askar ay madax ka tahay oo waddanka gacanta inqilaab ku qabsatay oo dalkii gelisay dhibaato kuwii hore mid ka sii xun. diinteedii bay la dagaalantay, dhaqankeedii bay la dagaalantay, wuxuubay baabiisay, istiraakiyadii iyo maxal lahay bay keentay, alle nacayb bay keentay, diin nacayb bay keentay, iyadoo dulmi iyo xadgudub iyo dhibaato ayay gacanta gashatay. iyadana waxay ku baabaaday oo ku dushay intifaado ama kacdoon shacbi oo madax iyo maxal lahay meel la qabta aan lahayn. kadib waxaa timid xarbigii ahliga oo dadku way isgumaadeen oo qabiil la isu dilay oo aana la isu dilay oo dhibaato la isu geeyey ilaa intaa ay soo socoto. waxayna gaarsiisay in waddankii loo kala qaybiyo xaafado qabaa'il ay leeyihiin oo reer walba ima guruub wal intay may xirtaan yidhahdaan annagu dowlad waxaan nahay gooniya oo cid kaleto aan ka mar qaadanayna male. dhibaatada holo meel ay taagnaataba maalinba ninbaa gacanta wax ku dhigayay. mid walbana waxa weeyaan dhibaato iyo mashaakil buu soo kordhinayo ummadda tan masaakiinta wax tara waa la waayay. alxaasil hadda waxa weeyaan 15 May waxaa la soo maray doorasho khaldan ama doorasho laleeyahay dadban oo waddo saxa aan ku imaanin. waxay doontaa ku timaado nimankaa xildhibaanada ah ee labada gole ka tirsan waxay xaq u yeesheen ama laga rabaa inay bisha 15 ay doortaan qofkii waddankan madaxweyne u noqon lahaa. marka waxaan rabaa inaan fariin aan u diro xildhibaanka Soomaaliyeed, ninka maxaa lahaa MPda, ninka maxaa lahaa codka iskale oo ilaa mujtamacii ummadii dhammaanteed ama 99% ama ka badanba wax codo ay leeyihiin lama arko. nimankaasi saa ku yimid oo maxaa lahaa ama gobolha ka yimaadeen ama magaca qabiilha ku yimaadeen, kulligood magaca qabiilha ku yimaadeen ayaa codka bixinaya oo ninka madaxweynaha dooranaya. xildhibaan marka maanta gacantaada waxaa ku jirta fursad aad u qurux badan oo ah inaad taariikhda gadaal u fiiriso oo wixii dhacay aad fiiriso, wixii la soo maray aad ogaato, kadibna aad go'aansato in ummadan aad u hiiliso ambase inaan dan aadan ka gelino oo jeebkaada aad fiiriso, maslaxadaada aad fiiriso, meesha aad ka timid aad fiiriso, ninka ku keensaday aad fiiriso oo markaa mustaqbalkaagii adiga kii caruurtaadii kuwaad awood u noqon lahayd ummadda muslimiinta Soomaaliyeed inaad mustaqbalkoodii aad mugdi aad geliso. marka alkhiyaaru laka alyawm
maanta doorashadu aday gacantaada ku jirtaa waxaad wadadaad mari lahayd aday gacantaada ku jirta ilaahay wuxuu leeyahay hadaynahu najdayn ibn aadamka ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ku hanuun labada wadada waxa la wadadatan ninkii mara khayr buu maraya jannay ku dhawaanaysa tanna qofkii qaada waxa leeyahay meel xun bay maraysaa naar bay ku dhimaanaysaa wal ciyaadu billaah marka doorana inta adduunyo joogto ay dooranaysa hadda maanta gacantaada adaa isku bireynaya isku gowracaya dadku in badan waxay ka sheekeeyaan corruption iyo laaluush in la qaato oo ninka xildhibaanka asagu asalka inuu ku yimid laaluush haddana uu rabo inuu safirto oo wixiisii ka baxay inuu soo ceshado oo ninka codka uu siinayo inuu lacag uu ka qaato asal ahaan qofka muslimka waxa uu samaynayo waxa waajib ku ah inuu isweydiiyo war waxa kan aad samaynayso waxa kan aad ku dhawaaqayso fi lacagta tan aad qaadanayso ma xalaal baa mise waa xaaraan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay in rishwadu ama laaluushku inay xaaraan ay tahay oo la lacnaday kan laaluushka bixiya iyo kan qaata in la lacnaday walaasana riwaaya kale waxa uu ku daray arraa'ish ninka u kala qaada dalaalka u dhaxeeya ee ninka xildhibaanka codka bixinaya ee maxaa la lahaayay lacagta u soo qaadaya kan codka la siinayo madaxweynada rabana lacagta ka soo qaadaya ee u dhaxeeya ee maxaa dhexdooda ka soconaya asaguna malcuunun waa la lacnaday calaa lisaani nabiyina calayhi salaatu wasalaam xoolaha sidaa lagu qaato oo laaluushkaana waa suxti waa xaaraan oo ilaahay uusan raalli ka ahayn diinta ay raalli ka ahayn qofkii cunaana nabi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma jiro hilibkii ku baxa xaaraan fannaaru awlaa bihi hilibkii ku baxa naar wuxuu yidhi xaaraan ku baxa ilaa waxaad cuntay hilibka waxaad cunayso ayuu jirkaa uu ku darsamaya nabi salaatu wuxuu yidhi annaaru awlaa bi macnaa naar baa maxaa ninkaasi looga jaray walciyaadu billahi ilaahay wuxuuna leeyahay xoolihiina ha cunina baadilnima ha ku cunina marka awalan nabi salaam waxaa kaleeto uu noo sheegay qofka in maalinta qiyaama 4 su-aalood la weydiinayo su-aalahaasi waxaa ka mid ah can maalihi min ayna iktasabahu wa fiimaa anfaqahu war xoolaha kan intee ka keentay asal ahaan ma wado xalaalaha oo ilaahay ogolaadaa diintu ay ogolaataa rasuulku uu ogolaadaa mise meel xaaraana oo ilaahay uu diiday diintu ay diiday rasuul subxaana wa salaam nooga digay ayaad ka keentay haddana hadhow markuu bixinayo waxaan leeyahay lacagtii intee ku bixisay meel ilaahay raalli ka yahay shareecadu raalli ay ka tahay ilaahay uu ogol yahay mise waxaad ku bixisay meel ilaahay diidan yahay oo ilaahay in lagu caasiyo miyaa lacagtaasi aad ku bixisay awalan lacagtaasi lama sadaqaysan karo waa xaaraan lacagta laaluushka codkaaga inaad gadato ilaan qofkan codka casiinayso waa taskiinaysa waxaad leedahay ninka kan codka waxaan u siiyey inuu yahay nin akhyaara nin wanaagsan nin fiican nin aan xaaraan cunaynin nin aan ummadda aan dulminaynin nin aan xumaati samaynaynin nin aan ummadda kala qaybinaynin nin ummadda aan dhibaato usoo geynin nin wadankii aan iibsanaynin nin baddii aan gadanaynin nin biyihii aan iibsanaynin nin maxaa dhulkii aan boobaynin weye codkayga sidaas waayo marka aad qofkaasaad leedahay anugu ilaahay baan ugu dhawaanaya qofkaa inuu qof fiican u yahay ibni aadam wax waa khaldami karaa marka haddii aad lacag qaadato macnaheedu waxa weeyaan nin aan ehel u ahayn oo aan mudnayn oo aan aamin ahayn oo waxba lagu aamini karin ayaad codkaaga siisay sababtoo lacag buu ku siiyey sidaa daraaddeed waad ku siisay marka dhow waxaad noqonaysaa nin daalima oo daalim u gargaaray marka lacag baa la qaataa la leeyahay intii soomaalida dhanna way ka sheekaynaysaa annagu indhaha ma aanan saarin laakiin sidaasay u muuqataa in laaluus la qaadanayo soo ma marka ninka lacagta aan qaatay awalan waa xaaraan ta labaad hadhow hadday gurigaagii soo gasho cunugii cuno reerkii cuno muxuu ku dambayn doonaa waxaad isweydiisaa guryihii la oran jiray booli qaran intay ku dambeeyaan lacagtii masaakiinta laga boobay ee la dhacay ee la xoogay ee gurya lagu dhisay intay ku dambeeyeen kuwii wax boobay ee wax dhacay intay ku dambeeyeenoo xaalkooda uu ahaa soo ma awalan waxaad qaadatay xoolo xaaraana labaad inaad meeshaad ku bixiyaan xataa ma sadaqaysan karto dad qada kama bixin karto xaj kuma aadi karto kuma cimaraysan karto guri lagama dhisi karo waa inaad iska bixisaa oo aad maxaa ama ninkii iska laha aad u celisa oo tirahdaa waxaan xaaraan waa iga qaado ama aad maxaa lahay aad ku ridaa maxaa lahay meelihii maxaa masaakiinta aad gacanta aad ugusa adiga sadaqo kuuma aha ilahay agtiisana waxba wanaag lagaaga qori maayo laakiin adaa isberi yeelay oranay rabbiyow wax qaldan baa isoo galay rabbiyow adaan ku tooba keenay banaankaa isaga tuuraya sida maxaa ribada iyo maxaa lahay dulsaarka la isaga tuuraya oo maxaa lahay
qof uu iska dahirayo oo kaleeto. Okay, qofka kan aad cod saa ku siisay oo aad laaluush ka qaadatay mustaqbalka carruurtaada ayaa dacday, reerkaaga baa dayacday, qabiilkaaga baa dayacday, wadankaaga baa dayacday, mujtamacii baa dayacday, diintii baa dayacday. ninkaasi aad codka siinayso ee aan mudnayn wuxuu dembi uu la yimaado, wax walba uu dembi la yimaado, anta maxalla juz'un minhum yawma alqiyaama. maalinta qiyaamo waa lagu weydiinayaa. sababtoo qaabiil walaalkiisa habiil buu dilay. nabi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nin walba oo dulmi lagu dilo ilaa qiyaami saaca ninkaa walaalkii bilaabay ee fidnadaasi waxbuu ku leeyahay. marka xildhibaano waxaad ogaataa ninkan aad codka aad siisay ee laaluushka aad ka qaadatay dembi walba uu la yimaado waxbaad ku leedahay, dulmi walba uu la yimaado qaybaad ku leedahay, xumaan walba uu sameeyo xumaanbaad ku leedahay, qofku wadanka baahi ugu dhinta dembigeeda waxbaad ku leedahay, qofta maxaa lahay la dhibaato geliyo dumarka la xumeeyo dhibaato la geliyo dembigeeda waxbaad ku leedahay, qofka la dilo wadada lacagta looga qaato ama laaluushka laga qaadanayo isbaarada loo dhiganayo dembigeeda waxbaad ku leedahay, ninka xafiiska dowladda fadhiya ee ninkaa uu soo magacaabay ee ummadda laaluush ka qaadanaya ee dulminaya oo xuquuqdooda u diidaya waxbaad ku leedahay, kan guryaha xafiisyada guryaha lagu talagalay ka shaqeeya ee ninkaa uu soo magacaabay ee dadka laaluush ka guranaya ama qofka aan maxaa lahay xuquuqdiisa u diidaya dembigaas waxbaad ku leedahay. ninkaasi aad dooratay ee codka aad siisay qaadiga uu magacaabo, garsooraha uu magacaabo, xukunka uu rido oo baadilka dembiga waxbaad ku leedahay. dayib marka intee dembigood qaadi kartaa xildhibaanow intee dembigood qaadi kartaa? way adag tahay. marka maxaa kula gudboon inaad tiraahdo sax waan ogahay ama dadkoo dhan way ogyihiin in xildhibaano fara badan niman ay keensadaan oo maxaa lahay madaxweyne goboleed wuxuu doona ha noqdo oo weli anaad ii joogtaa. war ninkaasi ilaahay agtiisa waxba kaagama tari karo, adduunyana waxba kaama qaadi karo. marka maalinta qiyaamana tagana beri buu kaa noqonayaa. weli wuxuu jeclaanayaa ninkii shalay ku dulmiyey oo ku yidhi ninkan codka iisi anaa xaf ku keensaday, anaa xildhibaan kaa dhigtay, anaa qabiilkii kaa soo dhex saartay, anaa maxaa odayaashii maxaa lahay daraaddaa u dulmiyey oo aniga codka iisi. maalinta ilaahay la hor istaago ilahay wuxuu leeyahy mujrimiin yawaddu lmujrimu law yaftadii min cadaabi yawmiidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiican uma yunjiih. wuxuu jeclaanaya caruurtiisa inuu isku furto, naagtii inuu isku furto. soo gormayid qabiiladiisa uu yidhahdo iyagoo dhan naar ha la aadiyo saa u badbaado. ilahay wuxuu waman fi lardi jamiican, adduunku waxa joogo dhan wuxuu leeyahy rabbi ow jahanama nimankaan gey si aniga aan u badbaado. marka nin naar kuu diraya ayaad rabtaa inaad codkiisa iyo hadalkiisa aad yeesho. ilahay wuxuu leeyahy walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani, ha isugu gargaarina dulmi iyo xadgub ha isugu gargaarina. xildhibaanow ilaahay subxana wa tacaala ka baqo, ilaahay subxana wa taala u tooba keen, ilaahay subxana wa tacaala u noqo. gacantaaday maanta ummaddan ay ku baaba'aysa ama ay ku wanaagsanaanaysaa. haddaad intaad aslahayd adoon laaluush qaadanin ilaahay ka baqanaya aad tirahdo ninka aad u malaynaysa wanaag oo ti alla ninkaa fulaan layihahdo wanaag baan u malaynayaa, khayr baan u malaynayaa, hadday wax ka halaabaan insha allah waxba dembiga kuma rid sababtooda waa dadaashay. laakiin haddaad og tahay inuu wax dulminayo waaba saasuu u socdaa ilaa wuxuu lacag kuu siiyey waxweyaan. ilaa qofka madaxnimo rabaa ee laaluushka bixiya inuu wax dulmiyo wax boobuu rabaa. marka adiga dulmigaad ugu gargaartay, dulmigaas marka waxbaad ku leedahay. ikhwaani arrintan waxawey wadankan ilaahay subxana wa taala ummad dhibaato kuma sallido ilaa iyagu dunuub ay la yimaadeen. in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. ilahay ummad ma dooriyo ilaa ay wa isdooriyaan. soo gurin ummaddu hadday fiican tahay oo ay maxaa la barwaaqa ku jirto ilaahay barwaaqada kama qaado oo maxaa abaar uma keeno ilaa iyagu ay dulmi la yimaadaan. hadday dhibaato ku jiraan masaa'ib ku dhex jiraana ilaahay masaa'ibtaa kama qaado ilaa ilaahay u tooba keenaan oo ay rabbi la heshiiyaan oo gacmaha ugu horsadaan. soo gamaysid marka dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysataa keliya ninka mas-uulka ama xildhibaanka ama maxaa siyaasiga maahe mujtamaca naftiisa mujtamac baaba'san weeye. haddii anagu dad fiican aan lahaan lahayn, dad ilaahay ka baqanaya aan lahayn, ilaahay subxana wa tacaala wax fiican buu wax noogu dhiibi lahaa. laakiin maadaama anagu dad maxaa lalahay qabyaalad iyo balaayo iyo xumaato iyo dulmi u gargaara aan nahay, rabbi wuxuu nagu salliday kuwa naga mid ah. sababta madaxdu cirkana kama soo degto dhulkana kama soo baxdo, mujtamacay kasoo dhexbadaa. hadduu mujtamac fiican yahayna ikhyaar bay noqotaa, rag madaxa akhyaar u noqda. hadday mujtamacu baaba uu yahayna haddii nin iyagoo kaleto ee madax u noqonayo. marka 15 May waxba kama xigaan. xildhibaano waxaan weliba la hadlayaa
gaar ahaan nimanka dhalinyarada ragga kan sanadkan rag fara badan oo dhalinyaro ayaa soo galay oo ninka soo gashaday uu rabo inuu ku jaranjaro ka dhigto oo ku gudbo waxaad ogaataniyow hadda xildhibaan baa tahay cid wax kaa qaadi karta male adiga rabbigaaga waay kursiga iyo maxaa laha iyo sanduuq iyo adiga idin dhexaysa male ninkaasi nabi salaam wuxuu leey laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq maxaa lahay ibni aadan laguma adeeco ilaahay macsiyada ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ku yidhaha nin khaldan codka ushu waxdee maya ilaahay baa diiday diintaa diiday rasuulkaa diiday anugu ilaahay baan ka baqanayahay warkaaga yeeli maayo iska dheh haddii xataa ka baqanayso hortiisa ha ku dhihine waxaada qarsee markaad meesha gasho qofkaad is leedahay alla ilaah ninkaana dadka ugu dhow anugu ma dhahay maxaa lalahay fulaan baa qurux badan laakiin ninkaana allaileh asle wanaag u malaynaya codkaaga sii haddaa saa yeesho ummadaad u gargaartay marka waxaad ku cibaaro qaataa sana 2017 rag badan oo khiyaara oo xildhibaan ah waa loo diiday xataa inay dhulkooda tagaan baa loo diiday airportna gudbaana loo diiday sababne adigana beriis wax haddee ninkaan saa yeelay mid kala imaanay saas ku yeelay marka waxa weeye ninkii haddaad maanta dulmi u gargaarto adna dulmigaasi waa kusoo gaaraya dadkuna inta badan dulmiga ma dareemaan ilaa iyagu uu soo gaaro mooye marka ku cibaaro qaado kuwii ka horreeyay haddaad xildhibaan tahay oo sharaf yeelato oo subcadaada ilaaliso allahaad ka baqato ilaahay waa ku cisaya waa ku sharfaya laakiin haddaad khiyaamo ku dhaqanto ood laaluush qaadato ood nin xun doorato berisu asagaa ku dilay asagaa xildhibaannimada kuu diidaay soo garaysid marka ikhwaani soomaaliyey ilaahay ka baqda soomaaliyey ilaahay u tooba keena xildhibaanow ninkaan ha ku dooranin inuu lacag ku siiyey ha ku dooranin inaad isku qabiil tihiin ha ku dooranin in gobolkaa uu ka yimid ha ku dooranin inaad isku koox tihiin ha ku dooranin inaad isku xisbi tihiin ha ku dooranin inuu madaxweyne goboleedkaa uu ku yiri codka sii waxaad ku doorataa adiga ilaahaada wixii idinka dhexeey oo ah hadduu nin fiican yahayna wanaagaan kugu gargaaraya haddaa nin tahayna codkay ku siin maayo haddaad saa yeesho adna wadankaad u hiilisay ummadaad u hiilisay wanaagaad u hiilisay khayrkaad u hiilisay owlaadaada iyo mustaqbalkoodaad u hiilisay laakiin haddaad intaad laaluush qaadato aad nin magac qabiil ku taageerto ama lacag buu ku siiyey aad ku taageerto ama ninbaa i amray aad ku taageerto mustaqbalkaagii aad iibsatay aad burburisay caruurtaadii baad dulmisay dalkaagii baad dulmisay mujtamacaadii baad dulmisay adaa isdulmiyey berisoo markuu xukunkaa dhamaado meeshaa aadi lahayd marka adaa maxaa la cirka roobku marka nasiixadeeda waxa weeyaan war waa dhibtoonaye aan ilaahay u tooba keeno war waa dhibtoonaye rabbi aan la heshiino war waa dhibtoonaye qaabkaan u soconno aan wax ka bedelno nimankan maxaa lalaha inta badan kulligood waxa weeyaan un been iyo turuufo iyo hadal badan waxaa la yidhi barkiisu waa been marka waxa weya waxaasaan qabanaya wax badan baan soo ornay waxbaan qabanayaane kuwii maxaa lalahay xaafadahooda soo burburiyey baa rabatan inay maxaa lalahay ay ummadda sii baabi'iyaan marka ilaahay aan ka cabso ilaahay aan ka cabsano annaguna yaynaan taageerin nin khaldan oo xumaatinooda yaan taageerina aan taageerno ama wanaajino qofka wanaagsan oo aan isleenahay alla ilahay waxbaa ka soo noqonayo marka haddii sidaa la yeelo xildhibaanadu sidaa yeelaan adduunya aakhira wadanka waa noo hagaagaya qiimaan yeelana haddii kaleeto burburka aan ku jirno dhibaatada aan ku jirno mashaakil aan ku jirno naga dhammaan mayso ilaa annaga gacmaheena ku sabisanay marka waxaa lalahay aan ilaahay u tooba keeno rabbi aan u noqono qof walba qofkuu yaqaana kula taliyo war wax wanaag leh war wax wanaaga ugu dar haddii aadan yeelin dhibkeeda iyo eedeeda mas-uuliyadeedana waxbaad ku leedahay amaama allahi caza wajalla iyo dadka hortooda ilaahay wax khayrqa wax noogu dhib rabbiyo wax khayrqa wax noogu dhib rabbiyo wax khayrqa wax noogu dhib ilaah ummadeena hagaaji ilaah ummadeena hanuuni وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.